hal qoys oo wada dhashay haddana isdhalay ayaa waxa ay si arxan daro ah u geeriyoodeen magaalada Qaahira ee dalka Masar. Intaan ugu dagalin sheekada murugada badan haddii ay tahay markii kugu wareysad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto maasanid. Qoyskan oo ka koobnaa 6 xubnood oo ah hooyo, aabe iyo caruurtooda ayaa waxa ay ku geeriyoodeen kadib markii ay gaaska oo furan gurigooda ay ka seexdeen sidaasna ay ku neefa qabatoomeen. Qoyskan ayaa la ogaaday geeridooda kadib markii la waayay cid guriga ka sanqaraysa sidoo kalena ka soo baxaysa. Jaarkooda ayaa booliska magaalada Qaahira ku wargeliyay in gurigan uusan qofna ka soo bixinin sidaas ay tahayna ay ku nool yihiin qoys dhan. Booliska ayaa markii ay gudaha u galeen guriga waxay ogaadeen in dhammaantood 6 qof ay wada geeriyoodeen, balse baaritaan ay sameeyeen booliska Qaahira ayaa waxa ay ku sheegeen in dadkan isku qoyska ah ay u geeriyoodeen neefta oo ku dhagtay awgeed, waxaana sababta ay ku sheegeen in ay ka seexdeen gaaska oo furan. Dhibaatadan ayaa waxa ay qabsatay hadalhaynteeda baraha bulshada ee dalka Masar iyo sidoo kale baraha bulshada ee Soomaalida, waxaana aad looga hadalhayaa baraha bulshada iyo warbaahinta dalka Masar. Mid ka mid ah dhalinyarada qoyskan ka dhashay ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in lagu soo wargeliyay in ay geeriyoodeen 6 qof ee qoyskooda uu ka kooban yahay. Waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay ku noqotay argagax sidoo kalena uu markii hore aamin waayay. Qoyskan ayaa markii Khamiistii ay ku xaroodeen gurigooda dib dambe loo arag ilaa galinkii hore ee Sabtiga, taas oo keentay in jaarkooda ay ka shakiyaan sidaasna ay booliska ugu wargeliyaan dhacdada ka jirta gurigan. Qoyskan ayaa waxa la sheegay in ay ka soo jeedaan gobolka Togdheer ee Somaliland, inkastoo aan la xaqiijin karin run ahaanshaha warkaasi. Haddana dadka qaar ee warbaahinta Soomaalida ayaa sheegaya in qoyskaasi ay ka soo wada jeedaan gobolka Togdheer ee Somaliland. Dhacdadan ayaa waxa ay ka yaabisay sidoo kalena ay xanuun fara badan ku abuurtay dad badan oo horay uga caban jiray gaaska cuntada lagu kariyo. Horay dad badan oo Soomaaliyeed oo ku kala nool gobolada dalka ayaa gaas inta uu ku qarxay haddana si xun u dhaawacay markii dambena ay u geeriyoodeen dhaawacii soo gaaray.